kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Cabdiraxmaan Ciro oo degdeg ku saxiixay dekada iyo saldhigii Berbera tallaabooyin waaweyn oo uu qaaday xilligan yay tahay dawladda uu saxiixay maxaa ka jira in soo laabashada Ciro uu wareejin doono saldhigaasi mucaaradka oo halis la geliyay markan iyo shuruudo kale oo la soo bandhigay xasan sheekh maxamuud iyo qaramada midoobo oo weli is haya tallaabooyin waaweyn oo hadda la qaadayo xogta hubka nuclear-ka Iran warka laga soo saaray miyaa la joojin doonaa tallaabooyinka Mareykanka uu qorsheynayo iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka ay daawan doontaan balse marka hore si aan faahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share gareyso like saarto meel fog gaarsiin qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan inuu ku soo gudbina adigoo rukumanaya barteena YouTube channel sidoo kale fura gambalka digniinta aragtidana qaybta hoose faallada ama commentiga inoogu reeba waa hagaag waa 20 bisha June subaxnimo Sabti hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen faahfaahintooda adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta Quraanka Kariimka Markazul Ihsan Online waxay diyaar la tahay barashada Quraanka Kariimka iyo shareecada Islaamka 24 saac markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa qaaday tallaabadii ugu weyneed oo la xiriirta saxiixa degdega ah ee saldhigii iyo dekada Berbera waxaa la ogaaday in kala bedelasho dhanka aqoonsiga iyo sidoo kale saldhigaasi uu jiray iyada oo xog aynu helnay oo hoose ay muujinayso in uu si degdeg ah ugu saxiixay dekada Berbera saldhigii iyo xarumo kale oo muhiim ah Israa'iil intii uu ku sugnaa Qudus ayaa la ogaaday in Ciro uu saxiixay heshiiskaasi kadib markii xoga la helay ay muujinayeen in heshiiska ay wada gaareen Netanyahu iyo Ciro uu ahaa mid ay ku jiraan waxyaabo badan dekada Berbera iyo goobo kale oo muhiim ah ayay xogta sheegaysaa in ay ku jiraan heshiisyada la isla gaaray oo Ciro iyo Netanyahu ay ku heshiiyeen taasi oo ka dhigtay mid dood culus hadda abuuraysa iyada oo dhinacyada isku haya tallaabooyinkan ay hadda u muuqdaan kuwa dardar gelinaya qorshayaashii ugu dambeeyay iyo go'aanadii ugu waaweynaa oo la xiriirinayo tallaabooyinkani sidoo kalena hadda u muuqanaya in la dardar gelinayo mar kale qorshaha arrinkaasi ku saabsan iyada oo Ciro uu u qaaday tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee la xiriira heshiisyada rasmiga ah ee la saxiixanayo sidoo kale waxaa jira heshiisyo kale oo Ciro uu saxiixay intii uu markaasi joogay gudaha Israa'iil gaar ahaan xarumo kale oo markaasi si gaar ah Qudus Tel Aviv iyo meelo kale oo ay markaasi ku arkeen ama isku arkeen dhinacyada heshiiska difaaca ah ee la wada saxiixay ee la qarinayay ee markii dambe la shaaciyay ayaa sidoo kale xog laga helay wasiirka difaaca Israa'iil Katz ayaa waxa uu Arbacadii sheegay in dalkiisu muddo sanado ah uu si qarsoodiya ula shaqeynayay Somaliland xilli uu kulan la qaatay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro Katz ayaa hadalkan ka sheegay kulan ka dhacay Israa'iil halkaasi oo uu ku qaabilay madaxweynaha Somaliland oo safar rasmi ah ku joogay dalkaasi safarkan ayaa ku soo aaday xilli xiriirka labada dhinac uu galay marxalad cusub kadib markii Israa'iil ay bishii December noqotay dalkii ugu horeeyay ee ku dhawaaqa in Somaliland oo aqoonsadaan dal madax banaan tan iyo markii ay ku dhawaaqday Somaliland inay ka go'do Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991 Israa'iil iyo Somaliland waxay leeyihiin saaxiibtinimo soo jireen ah oo ku dhisan dano wadaag ah qiyam dimuqraadi ah iyo ballanqaad ku aadan amniga iyo xasiloonida muddo sanado badan waxaan si qarsoodi ah isaga kaashanay howlo taxana ah oo si ahaan doona sir ayuu yiri sidoo kalena waxa ay markaasi hadda tahay tii ugu weyneed ee tallaabooyinkaasi loo qaaday wasiirka difaaca Israa'iil ayaa intaas ku daray in ay Tel Aviv hadda doonayso
inay iskaashiga amniga ee kala dhexeeya Somaliland gaarsiiso heer cusub. Hadda waxaan go'aansanay inaan iskaashigeena amniga gaarsiino heerar cusub si ay uga faa'iideystaan labada dhinac, labada shacab iyo xasiloonida gobolka, ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu sheegay bayaanka xafiiska kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga amni, dhaqaale iyo sidoo kale midka siyaasadeed ee labada dhinac, iyada oo la ogaaday in Somaliland hadda ay ka shaqeynayso sidii ay loo horumarin lahaa tallaabooyinkan iyo kuwo kale oo waaweyn. waxaana mowqifyada arrimahan la xiriira iyo doodaha waaweyn ee taagnaa waqtiyadii ugu dambeeyay ay ahaayeen kuwa is-soo tarayay iyo tallaabooyin aad u culus oo weliba loo qaaday sidii loo soo afjari lahaa dhaqdhaqaaqyada xasaasiga ah. Ciro ayaa ku howlan sidii uu u xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada badan leh ee markaasi la xiriira Somaliland iyo Israel, iyada oo heshiiska wasiirka difaaca iyo sidoo kale dhinaca kale markaasi xubnaha kale oo Somaliland ay hore u soo arkeen wasiirka arrimaha dibadda, ra'iisul wasaaraha Israel, dhammaantoodba laga hadlay sidii loo gaari lahaa istaraatiiji muhiima iyo heshiis caalami ah oo ay dhinacyadu wada gaaraan ayaa lagu heshiiyey in lagu soo afjaro arrimo badan oo hadda la isku hayay. markaana dhinaca kale haddii aynu eegno mucaaradka Soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay ku jiraan marxaladii ugu dambeysay. xogo laga helay kulamadii ugu dambeeyay ee filla Soomaaliya ay qorshaysay ayaa la ogaaday in dowladda uu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ay diyaariyeen qorshe istaraatiiji ah oo ay ku doonayaan in ay ku xakameeyaan tallaabooyinka la xiriira siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qorshahooda fashilinta markaasi ku aadan. waxaa khamiistii kulan gaar ah Muqdisho ku yeeshay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka si lamida jimcihii ayay ku yeesheen si joogto ahna waxay u wadeen tallaabooyin waaweyn oo isdaba jooga iyo kulamo ay ku yeelanayeen xarunta mucaaradku ay isugu tagaan ee hotelka Jazeera ee Muqdisho iyo sidoo kale guryaha Shariif Sheekh Axmed iyo kan Xasan Cali Kheyre oo ay ka socdeen dhankooda kulamo waaweyn oo diiradda lagu saarayay arrimaha la xiriira tallaabooyinka ugu dambeeya ee go'aankan lagu gaarayo. sidoo kale waxaa la ogaaday in dowladdu dhankeedu ay ka shaqeynaysay tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee looga hortegayo arrimahan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo kale oo waaweyn. waxaana sidoo kale hadda ay u muuqataa in ay xukuumadda Ciro iyo marka laga soo tago dhinacyada kale ee dowladda Soomaaliya ay ishayeen in hadda uu noqonayo dagaalka labaad oo ay geli doonaan dowladda. golihii wasiirada iyo sidoo kale xukuumaddii oo dhan waxa ay ku jireen dagaal la xiriiray tallaabooyinka Netanyahu ama Israel iyo Somaliland ay qaadeen oo Ciro iyo Netanyahu ay ku saxiixeen heshiisyo iskaashi oo Somaliland iyo Israel la xiriiray. mar kale waxaa xukuumadda ay ka shaqeysay go'aanka la xiriira tallaabooyinka ku saabsan doorashooyinka iyada oo la ogaaday in mucaaradka oo shirar joogto ah ku jiray marnabana aan ka hadlin qadiyadda midnimada Soomaaliya iyo arrimo kale in markaasi loo riixay tallaabooyinkan iyo kuwo kale oo eedo waaweyn ay ku jiraan kuwaasi oo iska kaashadeen dhinacyadu sidii ay markaasi mucaaradka loogu eedeyn lahaa in aysan keliya danahoodu ahayn midnimada Soomaaliya iyo arrimaha kale ee ay dowladdu ku eedeynaysa hadda in mucaaradku ay arbushaad iyo qalalaase dagaalo xambaarsan ay ka abaabulayaan gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo xarumo kale. Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ayaa horay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ahi ee isku groupka ama isku teamka yihiin waxa ay markaasi ugu digeen in la joojiyo buuqa siyaasadeed ay ka wadaan Muqdisho iyada oo weliba lasii laba jibaaray. waxaana xogo la helay ay muujinayaan in dhinacyadu ay markaasi ku heshiiyeen in aan la joojin tallaabooyinka looga hortegayo qorshaha dowladda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada uu wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kale Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaramada midoobay beesha caalamka ayaa weli ishaya iyada oo la og yahay xogo sheegaya in beesha caalamku ay diyaarinayso warqad furan oo dowladda iyo mucaaradka lagu hadlayo. wakiilada caalamka ayaa marka uu soo dhamaado shirkan
haddii lagu heshiin waayo toddobaadkan waxaa la filayaa in ay fasaxi doonaan warqad furan oo ku aadan in wax laga qaban waayey isqabqabsiga siyaasadeed ee siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale kuwa xukunka haya ee jooga ama dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxaana ay qaramada midoobay ama wakiilada caalamku sheegi doonaan in ay gacanta ka taageen, sidoo kalena ay ka bixi doonaan magaalada muqdisho oo ay shaqaalahooda kala bixi doonaan, ugu yaraanna ay tegi doonaan Nairobi ama sidoo kale dalalka kale ee deriska la ah Soomaaliya. waxaa qaramada midoobay waqtiyadii ugu dambeeyey ay ku celcelinayeen in aan la joojin wadahadal ka socda, sidoo kalena dhinacyadu ay ku laabtaan go-aan wadahadal lagu gaari karona la isla qaato, sidoo kalena lagu heshiiyo waxyaabaha laga doodayo, iyada oo doodu ay noqon karto mid miro dhala sida markaasi ay ku doodeen dhinaca iyo qaramada midoobay ama wakiilada caalamku. maalmihii ugu dambeeyey waxaa mucaaradka iyo dowladda markaasi lagu cadaadinayay in ay soo gaaraan go-aan midaysan iyo dhaqdhaqaaqyo la xiriira tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee ku saabsan arrimaha laisku hayay waqtiyadii lasoo dhaafay. xasan sheekh maxamuud ayaa la ogaaday in uusan marnaba ogolayn tallaabada mucaaradku hadda ay ku cadaadinayaan iyo qorshayaasha ay wadaan, dhankiisuna ay ka go-an tahay doorasho ka duwan midka mucaaradku ay rabaan oo ah kii 2022 iyo kii kasii horeeyey. isaguna waxa uu doonayaa doorasho aan sidaasi ahayn oo mid toos ah, mid dadban ayayna dalbanayaan qaar ka mid ah xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka, si gaara maamulada Jubbaland iyo Puntland. xogo la ogaaday ayaana laga helay macluumaadkan. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno markaana wararka bariga dhexe iyo hubka nukliyeerka ee Iran oo xogo la helayo ay muujinayaan in weli isqabqabsi uu ka jiro. heshiiska ay Mareykanka iyo Iran ku gaareen xabad joojinta ayaa la kala saxiixday, kaasi oo sida ugu dhaqsiyaha badan hadda u dhaqangelaya, sida uu BBC-da u xaqiijiyey sargaal ka tirsan aqalka cad. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah u saxiixay heshiiska isaga oo ka qaybgalayay shirka G7 ee ka dhacay dalka Faransiiska, waxaana lagu wadaa in markaasi dib loogu furo marinka Hormuz. dhanka kale Iran ayaa ogolaatay in aysan samaysan ama soo iibsan hubka nukliyeerka, waxaana labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay la tacaalaan uraniumka, sidoo kalena la tanaadiyey ee Tehran ay horay u haysatay. habka loo maareynayo maadooyinkaasi ma cadda. dukumeentiyadu waxay xusayaan in habka lagu heshiin doono si labada dhinac markaasi ay ugu cuntanto wadahadalada xiga. waxaa dusha ka ilaalin doonta hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah ee IAEA loo yaqaano, waxaana ay markaasi sargaal sare oo Mareykanka ah ayaa arintan ku tilmaamay halbeega ugu yar iyo guul weyn oo uu usoo hoyatay Mareykanka hadiiba 99% la joojinayo maadooyinka laga sameeyo nukliyeerka ama uraniumka nukliyeerka laga sameeyo oo Iran markaasi lagu cadaadinayo inay joojiyaan. ma cadda in heshiiska qodobkaasi Iran ay diidi doonto oo 60 cisho ee soo aadan qodobada la meel marinayo uu qayb ka yahay iyo in ay markaasi go'aankan wada gaari doonaan. guud ahaan daawadayaal barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.